xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe shalay baraha bulshada ayay isku soo mariyeen iyaga oo midba kale uu ku leeyahay waa eedeysane maantana waxa ay doonayaan inay heshiiyaan xilli dagaaladii labada nin dhaxmaray ee ku dhinteen wiilal dhalinyaro oo Soomaaliyeed haddaba waxaan kula wadaagayaa siyaasiyiinta Soomaalida mar walba waa kuwa isku baahan laakiin dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed ma jirto cid wax iska weydiisa marka la heshiiyo warbixintan ayaa kugu soo koobaya ee soo dhawaaw madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muuqaal laga duubay isaga oo salaada Jimcaha ku tukanaya madaxtooyada Soomaaliya waxa uu si weyn weerar afka ugu qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe filla Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe waxa ay ku eedeeyeen inuu yahay nin eedeysana ah isla markaana fallaagoway loona baahan yahay in lagu simo cadaaladda oo la soo xiro taasoo muujinaysa in waaran soo qabasho ah loo jaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wax ka yar 4 saacadood Axmed Madoobe dhankiisa waxa uu soo saaray fariin la mid ah midaasi oo waxa uu amray in la soo xiro Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo keentay in gacan ka hadal labada nin uu dhaxmaro ugu dambeyn dagaal xoogan uu ku dhax qorxo magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose dagaalkii dhacay waxa ku dhintay wiilal dhalinyaro oo Soomaaliyeed kuwaasi oo iyagu kala taabacsanaa madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland qasaaraha ayaa la sheegay inuu kor u dhaafay ilaa 10 ruux oo ku dhintay dagaalkii Raaskambooni ku dhaxmaray maamulka Jubbaland iyo filla Soomaaliya hadda geeridii dhalinyarada Soomaaliyeed meel ayaa la iska dhigay madaxweynaha Soomaaliya ayaana lagu wadaa in toddobaadkan uu gaaro magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland si xal looga gaaro tabashooyinka ay kala qabaan isaga iyo sidoo kaleba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe marka la heshiiyo kadib labada nin ayaa iyaga oo quslaya oo dhoola cadeynaya lagu wadaa in baraha bulshada lagu baahiyo sawiradooda laakiin dhinaca kale waalidiin ayaa dhibaato xoogan ka soo gaartay oo wiilal ay dhaleen halkaas kaga dhintay mana jirto cid wax iska weydiinaysa raggii ku dhintay dagaalkii labada nin lagu kala taageersanaa ee ka dhacay magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose mar walba siyaasiyiinta Soomaalida waxa ay ku dil heshiiyaan qubuuraha waana mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasi oo iyaga oo aan ka fiirsan kara taageero dhinacyo dagaalamaya marka ay dhintaan dushooda lagu heshiiyo laguna qaato heshiis nacfi ah oo labada nin mid badan ay ugu jirto dagaalkii dhaxmaray filla Soomaaliya iyo Jubbaland waxa loo arkaa mid siyaasi ah oo mid walba dana gaar ah ayaa u watay laakiin ma jirto cid laga difaacay qarannimada Soomaaliyeed taasi oo xitaa noqon lahayd wax wanaagsan hadii iyada oo qaranka mid kamid laga difaacayo ay ku dhiman lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed balse taa beddelkeeda niman wata dana gaar ah ayay u dhinteen ayaa ay leeyihiin dhalinyaro wax baratay oo ku dhaqan magaalada Muqdisho si kastaba ha noqotee Raaskambooni iyo Godod dagaalo xoogan ayaa ku dhaxmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada ay kala wataan ha yeeshee dagaaladaasi waa ay ka heshiinayaan maalmaha soo aadan sida qorshaha uu yahayna Kismaayo ayaa uu gaaraya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka soo laabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka haddii ay heshiiyaan waxa ugu weyn ee la isweydiin doono waxa ay noqon doontaa ma waxa ay ku dul heshiiyeen qabuurihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhintay dagaaladii labada nin lagu kala difaacayay mise iyaga ayaa ka heshiiyay danahooda gaarka ah waana mid kamid ah su'aalaha ugu waaweyn ee la isweydiinayo marka uu soo gabagaboobo kulanka Kismaayo uu ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliya maamulka Jubbaland adeeg maaliyadeed cusub sanduuqa maalgashiga ee Aaran sanduuqa baahinta maalgelinta yaryar waa maxay sanduuqa maalgashiga ee Aaran sanduuqa maalgashiga ee Aaran kaas oo lagu aasaasay xeer sanduuq gaar ah kuna taariikhaysan Abriil 2024 ayaa loo hirgeliyay si loo kordhiyo macaashka maalgashatada isla markaana loo baahiyo helitaanka iyo koritaanka maalgelinta yaryar financial inclusion ee dalka Soomaaliya isla markaana looga saaro dad badan oo Soomaaliyeed saboolnimada ragaadisay looguna abuuro dakhli iyo nolol xasiloon lacagta maalgashiga sanduuqa waa $ka Mareykanka taariikhda ku biirista sanduuqana waa mid furan xilli walba maalgashiga hore ee sanduuqana waa $2500 maalgashiga hore ee ugu badan sanduuqa waa mid aan xadidneyn kordhinta maalgashiga sanduuqa waa mid iyadana aan xadidneyn taariikhda ka bixitaanka sanduuqa waa wixii ka dambeeya 31 Diseembar maalgashiga lala bixi karo ma ahan mid xadidan ujeedka sanduuqa Aaran ujeedka ugu weyn ee loo aasaasay sanduuqa maalgashiga ee Aaran waa in la daboolo baahida maalgelineed ee dadka Soomaaliyeed ee dakhliga hoose iyo ganacsiyadooda ujeedka kale ee loo aasaasay sanduuqa maalgashiga ee Aaran waa in maalgashatada sanduuqa ay helaan macaashka ugu weyn oo ay suuragal tahay in loo sameeyo qaab dhismeedka sanduuqa maalgashiga ee Aaran guddiga sare ee amaanada sanduuqa Aaran waxa kor joogteen sare ku leh guddiga sare
ee ammaanada oo ah guddi jaangooya dhammaan go'aamada masiiriga ee sanduuqa. 2. martigeliyaha sanduuqa. sanduuqa Aaran waxaa martigeliyay oo xeerkiisu ku sidkan yahay horseedka Microfinance Limited iyo Bulsho Sacco oo ku hawlan baahinta adeegyada kaydka iyo maalgelinta yaryar ee dalka Soomaaliya. 3. guddiga shareecada. sanduuqa Aaran waxaa go'aankeeda shareecada Islaamka iska leh culamo Soomaaliyeed oo aqoon durugsan u leh nidaamka maalgashiga iyo maalgelinta ku saleysan shareecada Islaamka. 4. maamulaha sanduuqa. sanduuqa Aaran waxaa maamulaya maamul sanduuq oo waayo aragnimo ballaaran u leh naqshadeynta, hawlgelinta iyo la socoshada hawlaha sanduuqa maalgelinta, lehna khibrad ka badan 15 sano. yaa maalgashan kara sanduuqa Aaran? maalgashatada doonaysa faa'iido xalaal ah oo lagu kasbado sifo waafaqsan shareecada Islaamka. maalgashatada doonaya inay kordhiyaan ilaha dakhligooda si ay u kobciyaan hantidooda. maalgashatada ka damqanaya baahida ballaaran ee maalgelin ee ka jirta dalka, rabana inay ka tagaan raad iyo saameyn bulsho oo weyn. iyo maalgashatada khatarka cararka ee doonaya maalgashigooda inuu noqdo mid aamin ah isla markaana soo saara macaash dhaxal. yaa u qalma maalgashiga sanduuqa Aaran? waxaa u qalma maalgashiga sanduuqa Aaran qof kasta oo ka weyn da'da qaangaarka shareecada Islaamka, ahna muwaadin Soomaaliyeed ama sifo sharci ah ku degan dalka, sheega isha dakhligiisa, ayna ka go'an tahay bixinta sakada iyo waajibaadka kale ee maaliyadeed. maantaba bilow hayaankaaga maalgashi adiga oo la kulan maamulaha sanduuqa, adiga oo booqanaya mid ka mid ah xarumaheena si aad u hesho macluumaad dheeri ah.